bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Abdicays Cabdullaahi Riyali qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay arinta ku aadan sargaal ka tirsan ONLF oo la sheegay in dawladda Soomaaliya ay u dhiibtay dawladda Itoobiya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland uu wehliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boorame madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas oo ku sugan Sacuudi Carabiya ayaa ka warbixiyay socdaalkiisa uu ku tagay magaalada barakeysan ee Maka munaasabad loogu magac daray deganaan iyo damaashaadka ciida ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hoyga aqalka hoose ee magaalada Muqdisho xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Baran ayaa waxa inooga warbixiyay jaamacadda Barani oo u koorgalay qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Somali Cable balse iminka qadar adeega bulshada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay arinta ku aadan sargaal ka tirsan ONLF oo la sheegay dawladda Soomaaliya inay u gacan gelisay dawladda Itoobiya dawladda Soomaaliya ayaa ku kala qaybsantay xariga Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ah saraakiisha ONLF oo la aaminsan yahay in loo gacan geliyay dawladda Itoobiya xildhibaan Maxamuud Abukaate oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay sharciyada iyo saxnimada in sargaalkaasi ka tirsan ONLF loo gacan geliyo dawladda Itoobiya runtii de arinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo bariyahan doodiisa isla dhexmarayeen bulshada qaybadeeda kala duwan arintaas runtii waxay kamid tahay arimaha musiibada oo dadkii shacabka ahaa iyo madaxda wakiilka ka ah bulshada runtii ay aad ula yaabeen wax oo maartay de waxay ku noqotay shock runtii de dadka ay aad ula yaabeen oo maartay aan sinaba loo qaadan karin muwaadin Soomaaliyeed oo dhulkiisa joogo in loo gudbiyo cadow la og yahay wuxuu kala kulmayo waxay arintaas dhaawac ku tahay jiritaanka iyo sumcadda Soomaalinimada waxay dhaawac ku tahay dastuurka noo yaalay kumeel gaarka qodobkiisa 36 faqradiisa koowaad iyo labaad sidoo kale maartay waxay dhaawac ku tahay xuquuqda aadanaha sidoo kale waxay dhaawac ku tahay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada maartay qiimaha uu dhaxlaha muwaadinka Soomaaliyeed dawladnimada lagu sheegay sideedoo dhan waxay tahay ilaalinta shacabka hantidooda iyo jeetaankooda iyo dalkoodaba inay ilaaliso xildhibaan Daahir Jeesow oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hordhigay su'aal ku aadaneed dawladdu xaq ma u leedahay iyadoo aayaheeda siyaasadeed iyo amni fiirinaysa in Qalbi Dhagax ay u dhiibto dawladda Itoobiya amba sargaal ONLF ka tirsan ay gudbiso waxa uu yiri shaqsiga ONLF ka tirsan ma Soomaaliya ONLF ku yahay la dagaalamay mise Itoobiya la dagaalamay Itoobiya hadii la dagaalamay Itoobiya ayaa xaq u leh inay muxuu raasato oo ay qabsato oo ay dacweysato runtan ka hadlay anaga ONLF ma nihin Soomaaliya ONLF ma Soomaaliya dal burburi oo aan rabno siyaasadiisa inuu soo kabto waay ina amnigayna aan gacanta ku qabano oo aan laakiin interest oo ONLF dalkeena burburinayna anaga sargaalkani la dhiibay ee Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ONLF ka tirsan isagu ma yahay shakhsi loo tiri karo sargaal Soomaaliyeed mana yahay mubaadin Soomaali ah deegaanka isagu uu ka soo jeedana dawladda Soomaaliya muu aqoonsan tahay in dul Soomaaliyeed uu yahay waxa ka jawaabaya mar kale xildhibaan Maxamuud Abukaate dadkaas Soomaali galbeed waxaan u aqoonsanahay qayb kamid ah Soomaaliya inay tahay sida maartay dastuurkeena ku qoran meel lagu bixiyay iyo anaga sharciyan aan ku bixinay deegaankaas anaga ma jirto sidoo kale heshiis haday wada galaan laba dawladood sida sharciga wuxuu yahay in baarlamaanka la horkeeno arintaas ayadoona baarlamaanka la horkeenin lama fulin karo marka aad aan uga xunnahay hadduu xataa heshiis uu jiro sharci
oo labadaas ay maaragtay ku wada galeen oo maaragtay sax dhigi kara ma jirto. falanqeeyo siyaasadeed xasan xundubey ayaa ka jawaabaya aragtida ah qalbi dhagax iyo waxa uu yahay isagoo kala qaadaya aragtida labada ah ee Soomaali iyo Soomaaliya. marka anigu waxaan leeyahay qaabkii caadifada Soomaalida oo Soomaali weynta ku dhisnay adduunku ma aqoonsana kaas. adduunku wuxuu aqoonsan yahay xuduud Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed inay jiraan waana inta la aqoonsan yahay. inta ka baxsan waa Soomaali laakiin dawlado kale ka tirsan yihiin. Djibouti waa Soomaali dawlad kale waaye. Soomaalida Kenya waa Soomaali laakiin waa dawlad kale. Soomaalida Ethiopia waa Soomaali waa dawlad kale. marka waxa adduunka aqoonsan yahay qaabka adduunka aqoonsan yahay hadii la raaco sarkaalkaasi nin ka tirsan waa Ethiopia jabhad Ethiopia ka dhex dagaalanto u dagaalamayay wareejinteedu hadii xeerarka adduunka la raaco iyo dhaqanka qaanuunka adduunku yaqaano sidaas saxa dawladnimada Soomaaliya dan u ah dadka Soomaaliyeed dan u ah ninkaasina ma aha hadii la qabto macnaheedu in qoorta laga goonayo ma aha macnaheedu waxa waaye nin siyaasi ah oo laba dawlad isdhaafsadeen oo adduunku la socdo meesha oo mari doono iyo wuxuu noqon doono oo la socdo oo siyaasi ah waay ma aha jidka laga soo qabto oo markaa qoorta laga goonayo ma marka xaalada qalbi dhagax Soomaali ma hayn qalbi dhagax Soomaali waaye Soomaaliya sama ina kala qaadin waaye Soomaali iyo Soomaaliya jira Soomaaliya wadankan la yiraahdo Soomaalina waxa la yiraahdaa dadka af Soomaaliya ku hadla oo wadamo badan joogaan sida aad ogtahayba Carab hadii la yiraahdo af Carabi dadka ku hadla hadii la fiirsho 30 dawlad jirto af Carabi 22 dawlad jirto af Carabi ku hadasho laakiin hadii la yiraahdo Sacuudi Carabiya dhul go'aan la yiraahdo Kuwait iyo Sacuudi Carabiya waa ilmaadeer Qatar iyo Sacuudi waa ilmaadeer isku afay ku hadlaan isku reer waaye laakiin waa kala dawlad marka dawladnimada dawladda waxa la yiraahdaa Soomaali iyo Soomaaliya ila isku qaldama Soomaaliya ma aha qalbi dhagax laakiin waa Soomaali Ethiopia ka tirsan markii ay soo baxday dhiibitaanka qalbi dhagax waxa kala qaybsamay labada gole ee xukuumadda baarlamaanka iyo madaxda sare ee dalka taasi oo ku kala aragti duwan siyaasadda dhiibitaanka ah waxaana sidoo kale jiray in hadalhayn aad u ballaaran baraha bulshada maalmahanba ay ka taagan tahay ayadoo dawladda Itoobiya qudheeda wasaaradaheeda warfaafinta iyo kuwa kaleba siyaabo kala duwan ay uga hadleen arinta qalbi dhagax مسؤولين oo dhamaantood ku habtirsada xisbiga mucaaradka wadani isla markaana gudaha Hargeysa kula hadlay qayb ka mid ah warbaahinta ay waxay jawaab ridicilina ka bixiyeen dhawaaqyo ka soo yeedhay xildhibaan Saciid Cilmi Roble oo maalinimadkii shalay shaaciyeen ka baxay xisbiga wadani oo hore uga tirsanaan jiray waxaana ka mid ah hadalladoodii sidan Saciid Cilmi xisbigan ayaan isku ogeyn oo ahaa oo nala midaysnaa wuxuu nagala midaysnaa gudida habarowal ee wadani uu gudoomiye ka ahaa wuxuu u raacadsanay golaha sharci dejinta Soomaaliland uu gudida wadani ee golaha uu chairman u ahaa saddexda xil uu saddexdaba wadaninimo ku hayay iyo habarowalnimo wada jirta meel uu dhigay iyo meel uu kaga tagay ma garanayno taas wata andacada aanu ka maqlay kursi baa la diiday oo doontay meel loogu diiday iyo meel uu ku waayay midna ma garanayno waxaan ognahay kaliya inuu kulmiye u doontay kulmiye isu sharaxay oo uu maalintu damaca yeeshay sidoo noo sheegay kulmiye isu sharaxay inuu gudida inuu noo sheegay inuu 45 food oo kulmiye haysto inuu saddexdayada oday isbarbar fadhiya marxaati ka nahay ereyga inuu noo sheegay wili ugama baahni food uma sharaxni wadani hal food ugama baahni waa inoo maalinta arbacada iyo foodka iyagaana ku ayaana la dhigaya horta ninkii waxaan anagu weydiinaynaa waxaanu ka ogeyn waa intaas Saciid waxaanu weydiinaynaa war foodka tulmiye ka haysatay 45 ka ahaa mee su'aashan horta ku weydiinaynaa waa taa wadani kumaad waayeen isweydiin adigu waa sidaad nagu tireen kula hortaaganahay ummadda Ilaahay ku wada tiri kulmiyaad isu sharaxday kulmiyaa ku riyay kulmiyaa foodkii ku sii waayay kuwaad u sii socoteed u dudaysaa waa kugu dhisay cid kale waxay Soomaalidu tiraahdaa marka abaartu Saciid wuxuu guuray abaar wuxuu guri dhigay abaar nirgihii iyo geelii waxay Soomaalidu tiraahdaa hadda garagugood ay nin abaar u guri dhigay waa nin wuxuu ku guuriye gaadiidba waayay
siciid waa noocaa abaar buu guri dhigay ummaddii jeclayd buu ka tegey wuu isqaawiyey arrinta waa sidaa ay odayaashu u sheegeen annagaa ilaahay la hortegayna ninkii uu la hadlay uu ku yidhi 49 ayaan haystaa sheekh Axmarow u taga nimankii waar in adeer Soomaalidu waxa tiraa ergo wixii la siiyana way cuntaa wixii la qaadana wixii la farana way qaataaye ku noqo may warada 49 haysato inta kalena ku darsa ee kulmi ee wadani waxa loogu diray ergo hoggaanka xusbiga noo diray xildhibaanadii xildhibaan Siciid waa noo tagay xildhibaan Siciid wuxuu noo sheegay oo ilaahay ka markhaati yahay in aanu wadani cod uga baahnayn 49 cod uu haysto waxaan idiin sheegayaa buu nagu yidhi inaad geysaan oo fariintaa weliba golihii iga geysaan inaanu cod uga baahnayn arbacada iyo gola ay noo tahay markhaataanu iskaga nay maalinta qiyaamaha ilaahayna weydiinaya maalinta qiyaamaha ilaahay baana weydiinaya waxaanu u tagnay xubnihii golaha wakiilada ee wadani iyo hoggaankii xusbiga wada fadhiya saddexdayadaasi waxaanu u sheegnay Siciid inuu yidhi cod ugama baahnin wadani waxaan haystaa 49 xubnood oo kulmiya anifos baan ahay nabadgelyo wadaniyo intiina waanu u sheegnay وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي سومالي كيبل madaxweyne ku-xigeenka Somaliland uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Somaliland ayaa booqday magaalada Boorame halka uu si weyn loogu soo dhaweeyay sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye Jaamac Dude wafdigan ballaadhan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici kuna weheliyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaale sidoo kalena uusan ka maqnayn musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada dalka ay kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaaladani Boorame xarunta oo ah gobolkan Awdal soo dhaweynta kadib waftiga waxa loo galbiyay khayriyada magaalada Boorame iyadoo halkaasi ku sugnaayeen boqolaal dad ah oo iskaga soo kala baxay degmooyinka kala duwan ay ka kooban tahay magaaladani Boorame hadallo kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyay ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Awdal duqa degmada Boorame barasaab xigeenka gobolka Awdal oo ah kusimaha barasaabka iyo waliba Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal nagu beenna iibinayno xaqiiqbaynu iibinaynaa xisbiga kulmiye wax qabadkiisa iibinaynaa waxaynu ognahay inuu maanta xisbiga kulmiye hormuud yahay inuu bilaabo wadadii Jabuuti iyo Boorame isku xidhaysay ayna diyaar u yahay kana wuxuu ku soo daray cadaalad uu sameeyay Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaale waxa soo saaray xisbiga iyo xukuumadda israacan waxa uu soo saaray gobolka Awdal waa inaad u celisaan si cad oo duhray ugu celiyaan si cad oo ugu celisaan aad iyo taana soo kacay waa mahadnaq way aad baan inagu mahadnaqaya xisbiga kulmiye xukuumadda aad baan ugu mahadnaq golaha wakiilada garab taagan geesta kale iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta maanta xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu waxay nagu leeyihiin abaal weyn ninkaa Muuse Biixi wuxuu ku dhaartay oo Maxamuud Xaashi ku dhaartay in Somaliland laga siiyo Awdal gudoomiyaha golaha wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo u dhawaaday qabashadii raacdo walaalayaal ka jawaabay yaa mahadnaqay ee ku shaqeeyay waxa ka codsaynaa oo ka doonaynaa halka ka jawaabeen gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka golaha wakiilada Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaale oo isagu ahaa shakhsiga loogu talagalay soo dhaweyntan aadka u ballaaran oo madashaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay maanta halkan noogu soo dhaweyseen guul taariikhi ah oo aad in badan tabayseen oo ilaahay inoo suuro geliyay inay gacanteena soo gasho oo aynu ku guulaysanno mid ka mida kuraasta dalka ugu awoodda badan taasaad u soo baxdeen
nagu maamuusaysaan nagu soo dhowaynaysaan ummad baynu nahay dad gobaynu nahay dad waxa loo galay yaqaan baynu nahay in badan baynu ka hadlaynay inaynu qayb ka noqonno hay-ad kastoo dawladdu leedahay waxayna ka helno walaalayaal dad caqli iyo cilmi ilaahay siiyey baynu nahay dad kala garan karaynu nahay ninka u xoqaya iyo ka u xiiraya nin galay iyo nin gannaday libaax kale og baa la yidhi gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa isaguna waxa uu tilmaamay waxaan uu soo dhignay may ahayn ayaa leh oo keliya waa reewday waxaan uu soo dhignay waa ninkii golaha ugu yaraa mustaqbalka dhallinyaradaanu eegayno dad siyaasadda loo tabraanu eegayno waxaanu ku dooranay oo labaad taageerada u haysaan oo ah fariin horu soo qaadaysa hadda soo geliya cabdishiir sheekhayaale taana waanu qalmo fariin awalka tuubahay ta saddexaadeenu ku qaadanay waxa weeye isaga ragga ka soo baxay isagoo ugu yar golaha ayuu ugu codkarsan yahay waxaanu faraynaa inuu ugu caqli batana gabagabadii isagu waxaa hadalka soo afmeeray islamarkaana ka mahad celiyey qaabka loo soo dhoweeyey wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici sidaan idiin sheegay waxaan maanta idin wadnaa oo reer awdal anagoo noo soo biiray kursi labaad oo aad kursiga ku fadhiya kursi u dhigma oo ah kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo ilaahay nagu guuleeyey inuu noqdo axmed yaasiin shaacala yaallada waa garanaysaa aad iyo aad idinku hambaleynayaa sida sharafta leh iyo karaamada noo soo dhowayseen waxaan qabaa inaan mutaysannay maadaama aan sidno maanta kursigaa qiimaha ku leeyahay somaliland ogtiin kursigaasi dhayr kuma iman wuxuu ku yimiday siyaasadda xukuumadda kulmiye iyo xisbigeeda taba ahaatee soo dhowayntan ayaa ahayd mid loogu talagalay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamanka somalilan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka soo jeeda gobolada galbeedka somalilan jaamac xuseen jaamac dude somali cable t v gobolada awdal iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli gaas oo ku sugan xajka ayaa ka warbixiyey socdaalkiisii ugu tegay boqortooyada sacuudi carabiya wariye cabdiqaadir qayska ayaa warkan noo soo diray waxaa meel gabagabaha maraya howlihii gudashada acmaasha xajka iyadoona guud ahaan maanta xujayada sanada 2017 ay ku holanaayeen dhagaxtuurka shaydaanka waxaana xujayada ugu dambaysa maalnimada birita ay fulin doonaan howlaha acmaasha dhagaxtuurka shaydaanka ee ku yaala deegaanka Mina kadibna ay u guuri doonaan halkii ay ka deganayeen magaalooyinka barakaysan haddaba madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kamid ah duyuufur raxmaankii ka qayb galaya xajka sanada 2017 oo la hadlay TV-ga caalamiga Somali Cable ayaa ka warbixiyay qaabkii ay u soo guteen rukniga diiniga ee xajka iyo qiimaha aad ku balaaran uu leeyahay xajka xajkii waxaad kala kulantay maxaad nooga sheegi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh alxamdulillah ilaaba mahad iskale khayrkaas uu ka keenay nabadgelyo uu kulmiyay ku xajinay ilaa waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo xajkayaga qalbigayga niyadda aad buu wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed oo tiro badan baa naag joogta wada xajinay ummad islaamah badan oo malaayiin meesha isugu timid alxamdulillah qalbigayga niyadda iyo si walba aad buu wanaagsan yahay alxamdulillah aad iyo maxay ahayd marka waxaad fariintaada ku aadan ummadda Soomaaliyeed maadaama waqti barakeysan iyo goob barakeysan bal la joogo wallahi waxa kale hadda aan sameyn karo waxa dhamaanteen aan ducaysano ummadda u ducayno in ilaahay uu dhibta naga saaro inuu ummadda ilaahay qalbigeena uu isu wanaajiyo inaan midnimadeena iyo qarnimadeena iyo dowladnimada ilaahay dib noogu soo celiyo nasiiyo intaas ma hadal kari karnaa ilaahay inaan weydiisano alxamdulillah waan rajeynaa ilaahay naga aqbalo waan rajeynaa insha Allah wada safarkaaga halkee buu ku wajahan yahay dalkan ku laaban insha Allah dhawaan hadii la yiraahdo cabdiqaadir qayska TV-ga caalamiga Somali Cable mashaacirta Mina Saudi Arabia magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa xodxodasho iyo u diyaargarow xoogan oo ku aadan doorashada xilka madaxtinimo ee maamulka Hirshabelle Iqra Cabdullaahi Raagi Iqraar Ladan ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Jowhar
jowhar waa caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka soconayo qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo magaalada laga dareemayo u diyaargarowga doorashada musharaxiinta doonayso inay madax ay ka noqdaan dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana magaalada lagu arkayaa boorar ay soo dhigsadeen musharaxiintii ugu horeysay oo ay soo gaaraan magaalada Jowhar boorar ay ku muujinayaan inay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mar aan u kuurgalay qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa aan la kulmay qaar kamid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Jowhar anigoo weydiiyay sida ay u arkaan u diyaargarowga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan arko haynaa oo shalay iyo doraad iyo maantaba magaalada soo buux dhaafiyay dadka yani ka qayb galaya doorashada madaxweyne soo socda maalmaha soo aadan sida musharaxiinta isu soo taagtay muxuu ahay qabashada xilka madaxweynenimada iyo kaambeynarada reer Jowhar hadaan waan soo dhaweynaynaa musharaxiinta kulli wixiiba Hirshabelle yani waan isleenahay waa samata bixi kara musharax yani xildhibaan oo Hirshabelle oo musharaxna waan maqalnay asigana aadan u soo dhaweynaynaa ma sha Allah magaaladan waa la soo buux dhaafiyay annagana caleemo qoyan ku soo dhaweynaynaa adoo Ilaahay yira bismillaahir rahmaanir rahiim arintaas waa arin aad iyo aad loogu farxo reer Jowhar sida loogu dareemayo waa si oo farxad iyo rayn leh walow maanta aan la yaabanahay dadka Jowhar soo galay cadad intaas la eeg cimriga intaan Jowhar joogay 19 sano jooga ma aanan arkin muxuu ahaa xildhibaanada Hirshabelle way joogaan musharaxiin fara badan ayaa joogta dadweyne fara badan iyo odayaal dhaqameed fara badan soo galay arintaas waa arin la yaab leh xataa 10 bilood oo meeshan la joogay qaab aan loogu dareemin ayaan loogu dareemaya xiisad ay leedahay doorashadan waxay la tahay xataa Soomaali iyo madaxdeeda qaranka iska dhaafin adduunyada soo wada qayb gasho waa doorasho xamaasad badan u sheega magaalada Jowhar soo camirmayso musharaxiin badan ay imaanayaan qaarkood gidaarada ay ku dhagan yihiin marka magaalada waxaan ka dareemaynaa labadan bir isbedel marka isbedelkaas weyn ee jiray magaalada ka jira oo magaalada ay maqaayadaha iyo biibitooyinka iyo hoteelada iyo xaafadaha aad iyo aad u camiran yihiin waa sanadkii labaad ee haddana mar labaad madaxweyne cusub lagu dooranayo Hirshabelle marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa magaalada Biryaan waxaa ku soo badanayay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada maamul goboleedka Hirshabelle magaaladu aad ay soo buuxsan dhaaftay saxmadeeda aad loo dareemay xildhibaan Maxamed Yuusuf Culow oo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan aad ugu faraxsanahay in ay maanta ay soo bilowdeen musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabelle ama madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle musharaxiinta waxaa kamid ah xildhibaan injineer Cabdikariin Cali Nuur oo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle aad ugu faraxsanahay in xildhibaan kamid ah uu soo tartamo musharax uu soo noqdo isla markaana uu noqdo xildhibaankii ugu horeeyay boorarkiisa lagu soo dhajiyay magaalada Jowhar waan soo dhaweynaynaa dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle sidoo kale waxaan maanta aan xafiiskiisa aan ku booqdo kale gudoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamuud Yuusuf Bule ayaa Somali Cable TV waxa ugu warbixiyay halka ay marayso qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle qabanqaabada doorashooyinku aad ayay u socotaa si fiican ayay u socotaa ilaa iyo hadda musharaxiinta qayb ka midana waa soo gaareen magaalada qaybihii kalena waa soo daba joogaan waxa waaye mataqaanaa inta badan hoteelada hadda maanta waa wada kireysan yihiin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in ay ku dhamaa doonto sidii ugu wanaagsaneed ama mataqaanaa Ilaahay uu raali ka ahaa inay ku dhamaa doonto maalmihii u dambeeyay ayaa magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana magaalada laga dareemayaa u diyaargarowga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona goobaha lagu qaxweeyay iyo waliba hoteelada ay yihiin kuwa aad u camiran Iqraa Cabdullaahi Raagi iqraladan TV-ga caalamiga Somali Cable caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar urur gargaar oo ka howlgala magaalada Buuhoodle ayaa maanta qaybiyay xoolo ariya oo lagu talagalay in loo qaybiyo dadka deegaankaasi sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariye Qadar Cawil Ismaaciil
ururka gargaar oo ka mid ah ururada maxalliga ah ee ka howlgala magaalada Buuhoodle ayaa deeq isugu jirta mid lacageed oo loo qaybiyay qoysaska danyarta ah oo ay ku jiraan kuwa barakacayaasha ah ee Buuhoodle iyo xoolo dhan 70 neef oo ari ah oo loo qalay maalmaha Ciidul Adxa qoysas ku nool tuulooyinka Maygagle, Qaydar, Daarasalaam iyo Gocondhaale. Gudoomiyaha ururka gargaar Cabdullaahi Jaamac Haaruun ayaa ka warbixiyay arigan deeqda ah iyo lacagaha ay qaybiyeen iyo meelaha ay ka soo qaadeen. waxaan joognaa magaalada Gocondhaale oo ah qiimadii barakacayaasha iyo magaaladii hore qadiimka ahayd. waxaan soo maray magaalada Maygagle, waxaan ka soo qaybinay ariga udxiyada ahaa bixawlillaahi wa cawnihi. waxaan soo maray magaalada Qaydar iyana waxaan ka soo qallay oo ku soo qaybinay arigii udxiyada ahaa. saacadana waxaan joognaa magaalada Gocondhaale oo aan soo gaarsiinay arigii udxiyada ahaa. biidin ilaahi waxaan u sii gudbi doonaa Daarasalaam oo iyadana aan u wadno arigii udxiyada ahaa. waxaan kaloo ka soo qaybinay cusbitaalka dhibirka Buuhoodle oo aanu gaarsiinay isna arigii udxiyada ahaa iyo agoomaha qaybo kamid ah magaalada Buuhoodle iyadana aanu gaarsiinay arigii udxiyada ahaa بفضل الله وعونه وإحسانه أرنتاس وحافلي أورك جرجار gudoomiyaha dalada ay ku midaysan yihiin ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka Cayn oo ururka gargaarna xubin ka yahay Cabdikariin Maxamuud Faande ayaa isaguna halkaas ka hadlay isagoo ururka gargaar ugu mahad celiyay dhaqdhaqaaqa iyo waxqabadka uu ka sameeyo guud ahaan gobolka Cayn. ururka gargaar oo deeqdan ay dad muslimiin la soo bixin soo gaarsiiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. ka gudoomiye dhalinyaro ahaanna ururka gargaar waa urur u taagan bulshada markasta. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadaalka badan ee ay wadaan. waana ku ogeyn dadaalkaas waqtigii adkaa ee dadku abaarta ku jireen say u shaqaynayeen. ururka gargaar iyo ururada kale ee la midka ah waxaa la rajeynayaa insha allahu tacaala inay ku daydaan ururkaas oo ummadooda ay saas oo kale insha allahu tacaala ay u soo gurmadaan wixii loo dhiiban ay soo gaarsiiyaan sida ugu habboon. ururka gargaar waxaan leeyahay hawlkana daalayn wali waa hogadii hawsha halkaa ka sii wada insha allahu tacaala. dadka waa dadkiini weeye idinka iyo inta kale ee magaranaysaay barnaamijyada ku shaqo leh oo sugayaan insha allahu tacaala. waxaan rajeynaynaa inaad shaqadiina sii laba laabtaan. annaga ka dhalinyaro ahaana insha allah waa idin garab istaagi doonaa haddii ilaahay qadaro. iyadoo ururka gargaar uu ka tirsan yahay dalada ururada dhalinyarada gobolkan Cayn haddana waxa la yiraahdo uu ka dhaqdhaqaaq badan yahay ka daladu uu ka dhaqdhaqaaq badan yahay marka run loo sheego xaqiiqada laga hadlo. marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay ambal yahay dalena shaqada fiican aad saaka qabateen markaati baan ka nahay inta damana insha Allah waa idin la socon doonaa haddii Allah idin wada salaamatiin. odayaasha iyo waxgaradka tuulooyinka la gaadhsiiyay xoolaha iyo kuwa kamid ah kuwa lacagta la siiyay ayaa halkaasi uga duceeyay ururka gargaar iyagoo mahad celin u soo jeediyay. ilaah ma mahad le marka hore oo ilaahay baa mahad laan ugu mahadnaqanaa. waxaan ahay odayaasha Daarasalaam waa noo yimaadeen odayaashii iyo culimadii ururka gargaarka noo waday ariga ulxada ah. ulxadii way noo keeneen waanu biraysanay waanu ka guddoonnay wixii noo soo dhiibay qofkii jeebkiisa ka soo saaray iyo kii waday iyo kuwii noo keenaba ilaahay ha barakeeyo. barakacayaasha waad mahadsantihiin. ururka gargaar ariguna waana soo gaadhay wadxada waa ka guddoominay waana gowracnay. ururka dhalinyarada si wanaagsan buu shaqaynayaa idinkuna waa mahadsantihiin. mahad ilaahay baa leh. sidaasaan noo qaybsanay waxaa noo keenay ururka gargaar. ilaahay baa horta gargaar leh ilaahay baana wax gargaara ilaahay baa wax gargaara. ururka gargaar baa noo keenay ilaahay baa noogu soo gargaaro noogu soo dhiibay iyagii baanu noo keeno aanu ka guddoomanay. waad arkaysaana waa ka dabadayada taagan dadka masaakiinta ee meesha jooga walaalahooda bay ugu keeneen. ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu wax sanina siiyo. ilaahay waxaynu ka baryaynaa kii keenay iyo kii qaybshay iyo kii qaaday intaba in ilaahay kor u qaado. aamiin. khadar cawl ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable Buuhoodle. munaasabad ballaaran oo lagu magac daray deganaan iyo damaashaadka ciida ayaa lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee magaalada Muqdisho. wariye Cabdullaahi Axmed Catoosh ayaa warbixintan inooga diyaariyay. iyadoo dunida islaamka ku jirto dabaaldega maalmaha Ciidul Adxa ayaa waxaa Muqdisho ka qabsoomay xalay munaasabad ballaaran oo uu soo agaasimay maamulka gobolka Banaadir. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan caasimada ayaa ciwaankeedu ahaa deganaan iyo damaashaad ku ciida. intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay cuntooyin ka mid ah hidaha iyo dhaqanka iyo qaar ka mid ah suugaanta Soomaalida. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir dhinaca arrimaha bulshada Cabdulaahi Erega oo ka hadlay intii ay munaasabaddu socotay ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka munaasabadan ay u soo qaban qaabiyeen. sharaf weyn noo ah caawa in halkan aan kula damaashaadnay dhalinyaradii gobolka banaadir oo marti u ahaa fanaanka weynaa Cabdirashiid Muxudiin oo wadanka dibadiisa nooga yimid dad aad u badan ay taageersan yihiin haysiisa wadaniyada ah ee uu qaado waxayna annagana na tusinaysaa sida ay u damaashaadeen dhalinyarada in ay tahay xaflad mudneed in ay booskeedii dhacdo. waxaana liisaga yimid dhammaan gobolka banaadir ardayda noocyadeeda kala duwan jaamacadaha dhalinyarada sportiska iyo kuwa degmooyinkaba inkastoo ay jireen inay ka soo qayb galeen xildhibaano iyo senatare xataa laakiin xafladdu waxay ahayd xaflad dhalinyaro. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir Muluuk Cabduqaadir oo iyana ka hadashay goobta ayaa ummadda Soomaaliyeed la wadaagtay tahniyadaha iyo hambalyada ku aadan maalmaha Ciidul Adha. dhammaan ummadda Soomaaliyeed islaamka oo dhan meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan gobolka banaadir waxaan u dirayaa tahniyad ciidadeed. waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida nabad iyo caafimaad. ciidan ciideedana allaha nagu gaarsiiyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash. xafladan maanta caawa oo iskugu nimi oo halkudhigeedu ahaa deganaan iyo damaashaad ku ciida oo aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada gobolka banaadir iyo dhalinyaro ka timid wadanka dibadiisaba si ay u arkaan magaalada deganaanteeda iyo qaabka aan u noolnahay. xafladan oo laga kala yimid ilaa Kaxda, Urwaa, Daynile sida aad u aragteen wax ka maqnaa ma jirin dhalinyaradii ku nooleed gobolka banaadir. ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Cumar Dalha oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda oo isna ka hadlay madasha ayaa sheegay in wax wanaagsan ay tahay in hidaha iyo dhaqanka Soomaalida kor loo qaado munaasabadaha aynkan ana lagu soo bandhigo. quruxdeeda iyo ka soo qayb galayaasheeda oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo gudaha dalka iyo dibadiisa isaga yimid gobolada Soomaaliyeed badi dhalinyaro ka wada timid caawa aan fursad u helay inay iyagoo munaasabadan dhaqankii Soomaaliyeed iyo hidihii ka sokow suugaantii iyo fankii ka sokow in cuntadii Soomaaliyeed ee aan dhaxalka u lahayn ee bunka iyo cambuulada digirta qaxwada iyo zanjabiilka oo dadka qaarkiid sanooyin ugu dambeysay qaarna hadda iyagoo macansanaya aan u jeeday dhalinyarada cusub runtii dowladda Soomaaliyeed ee aan ku faano oo dowladnimada maanta aan harsanayno dhibaatooyinkii laga soo maray iyo wixii Soomaaliya burburkeeda xamar astaan ay u ahayd maanta in quruxdii xamaroo mar kale soo noqotay dowladdii Soomaaliyeed oo jirta shacbigeedii oo isdhex taagan yihiin madaxweynahooda gudoomiyahooda baarlamaanka ra'iisul wasaarahooda intii maanta ee talada ka go'day ka sokow intii kale ee culimaa udiin dhalinyaro sidoo kale ganacsato ayadan loo kala harin mar masaajidka lagu wada tukado mar munaasabooyinka la iskugu yimaado mar xafladaha la iskugu maaragtay hambaliyeeyo sidaan oo kalena casho sharafyo la isu qabto waa waxaan wax badan ilaahay aan ka sugaynay aan ka rajaynaynay rabbi. Cabdulaahi Axmed Atoosh, Somali Cable TV, Muqdisho. siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beesha Saciid Cilmi Rooble ayaa sheegay inaysan ku raacsanayn ka bixitaankiisa xisbiga wadani sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye Naasir Kayda. uqaasha waxgaradka iyo aqoon-yahanka uu ka soo jeedo siyaasi Saciid Cilmi Rooble oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Gols ee magaalada Burco ayaa sheegay inaanay ku raacsanayn go'aankii uu shalay qaatay xildhibaan Saciid Cilmi Rooble ee uu iskaga casilay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana codar ku sheegeen inuu kaliya tashaday isla markaana aanu matalin beesha waxaana intaasi ku daray in beeshu si buuxda u taageersan tahay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana halkaasi ka hadlay musharaxa golaha wakiilada ee xisbiga wadani ee gobolka Saaxil ee beelaha Dhogore xildhibaan Qadar Aadan Hayaan waxaanu maanta halkan ka cadeynaynaa saddex qodob
qodobka koobaad waxa weeye waxa aanu halkan ka cadaynaynaa in beesha waqooyiga gobolka Togdheer iyo koonfurteedu ay tahay xisbiga wadani 100%. xisbiga kulmiye beeshu way ka soo horjeeday muddo dheer oo ku siman xilligii madaxweynaha maanta talada hayaa oo sharx ahaa beeshu bay ahayd maantana waxa weeyaan wadani taas waxa weeyaan mowqifka beesha kasoo horjeedka xisbiga kulmiye beeshu waxay ku saabsan tahay maaha qofdiid maaha laakiin waxa weeyaan political programka xisbiga kulmiye ayay beeshu kasoo horjeeday waxaan leeyahay Saciid Cilmi Rooble fikirka aad qaadatay shakhsiyadaada cid aan ahayn kuma matishid mid kalena waxaan halkan ka tilmaamayaa dadkanu aragtidooda iyo fikirkooda anigoo ku hadlaaya afka beesha aan matalo waxaanu dhiig iyo dhaqan iyo awoodda iyadaba isla gudub taagaynaanu ka mid nahay xisbiga wadani xisbiga kulmiye laba noqon maayo kulmiye waa kii hore waxqabadkii kulmiye waa la ogaaday annaguna haddaanu cuqaasha nahay si gaar ah ugu baahanay isbedel Saciid Cilmi Rooble oo ah xildhibaan qaran isla markaana ka tirsanaa xisbiga wadani inuu xalay tacadeeyay isagoo shakhsiya inuu iska casilay xisbigii uu ku mahadsan yahay oo waxa weeyaan qofku hadduu shakhsi ahaantiisa halkaa u maro annaga ceebi nooga tegi mayso waxaana u baahan in ay waxa weeye arrinkaa ay masaxaan cidda hoggaanka u ahaa annaga Saciid Cilmi Rooble xisbiga nama keenin annaga iskaya u nimi annaga taladayada ku nimi annaga tawfiiqayada ku nimi laakiin hal mid baan aad ula yaabay runtii oo Saciid Cilmi Rooble maanta xisbiga kulmiye waa ogtihiin hagardaamada iyo dhibaatada uu geystay Soomaaliland siba reer saaxil waxa ogtihiin inta bad iyo bariba la cunay in xawaalihii la soo qodayo oo dadkii meeytida ahaa inta xawaalihii laga soo saaro shakhsi kale uu ka dhiganayo dhul maanta Saciid Cilmi Rooble wuxuu u xanqal taagay waxa weeye meesha dulmiga iyo daaduunka uu ku socdo ee isbedelka dhabta la islaha dhawaaqiis uu u baxayaa damala wax ruuxashu haaye hadafkiisaan ahayn inuu isbedel keeno inta waxaan kaga baxayaa Saciid Cilmi Rooble qodobka labaad aan doonayo inaan iftiimiyo inaan baa habeen dhaweyta hadlay oo waxa weeye golaha guurtida ka tirsanaa inankaasi wuxuu yiri waxa weeyaan wuxuu tilmaamay cidda wadani joogta ee beesha ka tirsan waxa weeye reer saaxil in la gowracayo waxa weeye mas'uul qaran buu ahaa kursigana waxa weeye oday ka weyn oo aabihii ayaa lagu maamuusay maxamed ciise reerka la yiraahdo u fadhiyo magaciisa uu ku hadli jiray laakiin markii ay geeridii u timi inay yaro leylka Cabdishakuur u ururiya inuu ku hadlo afan mas'uul qaran ahayn oo uu yiraahdo dadka midiya iskugu dhiibo oo uu yiraahdo waxa weeye maanta waxa weeye saca gowrac arrinkaas waa nusqaan baan leenahay nabadiisu buu ku tagay xisbiga wadani iyo beesha aan soo jeednaa wax saameena kuma yeelan doono beesha sidii xisbiga markii hore xisbiga loo taageertay ayay iminka loo taageersan doontaa insha Allah waxaan aaminsanahay in iminka ay kaga sii badan doonto insha Allah taala Saciid Rooble ka tagayba in iminka si miyuga xisbiga u soo gali doonaan Saciidna waxaan leenahay Saciid maanta waa habaabtay waxaan ku leenahay ku soo noqotolka iyo xisbiga aad ka tirsanayd kulmiye waxba kuma hayo ha ku lugoyn kulmiye waa kii asoo tolo ka timina waxba ku haynin waxaan ku leenahay Saciidow inaad xisbiga aad ka tagtay xisbi laga meel laga jeclaa weeye waa meel sharaf iyo karaama aad ka lahayd waa meel waxaan laga tixgelinayay meel aan laga jeclayn waa laga doonay baa maanta ayaa lagu qaadinayaa iyagoo ugu dambeyntiina ugu baaqay xildhibaan Saciid Cilmi Rooble inuu ku soo noqdo xisbigiisii hore ee wadani waa Naasir Cabdullaahi Guuled Naasir Kayd telefishinka caalamiga ee Somali Cable Burco guud ahaan warkii telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanayay stuudiyaha magaalada Muqdisho daawadayaal waa inaga inta warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Abdicays Cabdullaahi Riyali waadna ku mahadsantihiin daawashada warka telefishinka Somali Cable